nabi ibraahim calayhi salaam sida uu soo wariyey ibnu kasiir abtirsigiisa wuxuu noqonayaa ibraahim ibnu nasr ibnu naxura ibnu saruja ibnu raacuwa ibnu farij ibnu caabir ibnu shaalix ibnu afaqshanda ibnu saam ibnu nuux calayhi salaam. waxa uu ku abtirsadaa caabir ibnu shaalix oo la dhashay nebiyullaahi huud calayhi salaam, wuxuuna nebi ibraahim kala siman yahay nebi saalax calayhi salaam iyo nebi huud inay ku wada abtirsadaan saami ibnu nuux oo ahaa wiilkii nebi nuux calayhi salaam. nebi ibraahim waxaa la dhashay laba wiil oo kala ahaa haaraan iyo naaxuura. nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu ahaa wiilkii dhexe, naaxuurna wuu ka weynaa halka haaraanna ka yaraa. haaraan waxa uu dhalay nebi luut calayhi salaam. nebi ibraahim waxa uu dhashay aabbihiis aasar oo 75 sano jira, waxaanuu ku dhashay deegaankii baabil ee ku taalay dhulka ciraaq, waana siday isku waafaqeen culimmada ka faalloota siirada nebiyada. deegaankii uu ka dhashay nebi ibraahim calayhi salaam waxay dadku caabudi jireen xidigaha iyo meerayaasha, waxayna samaysteen sanabyo si ay ugu dhowaadaan ilaahyada ay caabudaan. nebi ibraahim aabbihii asar wuxuu lahaa sanab u goonni ah, isaga oo dhallinyaro ah ayuu ka biyadiiday wixii qoomkiisa ay caabudayeen. qofkii ugu horreeyey ee dacwada ula tago wuxuu ahaa aabbihii asar, wuxuuna ku yidhi, aabbow maxaad u caabudaysaa wax aan waxba ku taraynin, waxba aan arkaynin, adigana aan waxba kuu taraynin ilaahay agtiisa. inta aan bannaanka kale loo gudbin dood adag ayaa dhex mari jirtay isaga iyo aabbihii. mar walba isagoo ilaalinaya xurmadda waalidka ayuu aabbihii u sheegi jiray inuu waddo qaldan ku socdo oo shirki ah, wax aan khasaaro iyo hoog ahaynna aysan u horseedayn. nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu adeegsaday asluub iyo akhlaaq aad u dabacsan, hase aatee aabbihii oo gaalnimo ku fogaatay waa uu ka dhaga adeygay, kadibna waa uu dayriyey. nebi ibraahimna sidaas ugama harin inuu aabbihiis xaqa ugu yeero. asar markuu wiilkiisii ibraahim calayhi salaam ka reebi waayey xumaanka sheegidda asnaamtoodii, aad ayuu uga carooday, wuxuuna ugu hanjabay inuu dhagax ku dili doono ama dhulka ay ku nool yihiin uu ka masaafurin doono. balse wuxuu u sheegay inuu wuxuu ku hadlayo uusan ahayn hadal uu iska aliftay, ee uu yahay waxyi alla subxaanahu wa tacaala uu ka helay, sida alla ku sheegay aayadda 47 ee suuratulmaryam. nebi ibraahim markii uu ka daalay wuxuu sheegidda aabbihii ayuu ku yidhi, nabadgelyo korkaaga ha ahaato, waan kuu dambi dhaaf weydiin doonaa, alle waa uu ii naxariistay aniga. sidaas ayuuna ku go'aansaday inuusan dacwadda ku ekayn aabbihiis oo keliya, ee deegaanka uu joogo dadka ku nool uu wada gaarsiiyo. maalin maalmaha ka mid ah waxa uu la kulmay qoomkiisii oo u sujuudsan sanabyadii, kadibna waxa uu weydiiyey, waa maxay sanabyadan aad u sujuudsan tihiin? waxayna qoomkiisii ugu jawaabeen inay ka dhaxleen aabbayaashood oo ay sidaas u caabudayaan. nebi ibraahim isaga oo aad u dhiiran ayuu ku yidhi, idinka iyo aabbayaashiinba waxaad ku sugan tihiin baadi iyo khasaare, rabbigiin waa kan samooyinka iyo dhulkaba leh, waxa aad caabudaysaanna waa dhagax aad gacantiinna ku samaysateen. reerka uu ka dhashay waxay lahaayeen ciide ay u dabaaldegaan sanadkii mar, inta aysan bixinna waxa ay samayn jireen inay cuntada uga tagaan sanabyada hoostooda si ay cuntadaasi ugu barakowdo. maalin iyaga oo ku maqan dabaaldeggii ayuu nebi ibraahim calayhi salaam go'aansaday inuu burburiyo sanabyadooda. waxa uu soo qaatay faas, waxaana uu burburiyey sanabyadii marka laga reebo kii ugu weynaa, kadibna faaskii ayuu garabka u suray kii ugu weynaa. qoomkiisii markii ay soo noqdeen ayay la kulmeen asnaamtoodii oo la burburiyey, waxayna isweydiiyeen in lagu soo duulay iyo in kale. balse markiiba koox ka tirsan qoomka ayaa tiri, waxaan maqalay wiil yar oo ceebaynaya sanabyadeenna, waxaa magaciisa la dhahaa ibraahim, isaga keliya ayaana maanta dabaaldega ka maqnaa. koox caraysan ayaa loo diray ibraahim calayhi salaam, kadibna way soo qabteen nebi ibraahim, waxayna ku dhaheen, ma adiga ayaa sanabyadeenii burburiyey? nebi ibraahim calayhi salaam waxa uu ugu jawaabay, waxaad weydiisaan sanabka weyn haddii uu awood u leeyahay. wuxuu u ishaaray in sanabka weyne uu ficilkan ku sameeyey kuwa yaryar. way garan waayeen waxa uu la jeedo oo ahayd, waxaan isdifaaci karin ayaad kaalmo weydiisanaysaan. jawaabtii nebi ibraahimna aad ayay uga sii caroodeen, kadibna waxay isugu laabteen wadatashi wixii ay ka samayn lahaayeen. ibraahim calayhi salaam waxay isku afgarteen sida keliya ee ibraahim calayhi salaam lagu ciqaabi karo ay tahay in dab weyn la shido, kadibna lagu dhex rido, halkaana uu ku bislaado oo uu ku baaba'o. qof kasta oo dadkii meesha deganaa ahaa ayaa la amray inuu xaabo keeno si loo huriyo dab aad u weyn. waxay diyaariyeen dabkii oo xataa la sheegay in shimbiraha korkiisa maraya iyagoo bisil ay soo dhacayeen. waxa ay xarga ku xirxireen nebi ibraahim calayhi salaam, kadibna waxay sameeyeen shay xoogan oo dabka ku tuura, maadaama dabka aan loo dhowaan karin kulayl daraaddii. ibnu cabbaas waxa uu wariyey in nebi ibraahim markii loo diyaariyey dabka ayaa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, alle ayaa igu filan, kadibna dabkii ayay ku tuureen, sida alle subxaanahu wa tacaala ku sheegay aayadda 69aad ee suuradda ambiya. alle ayaa amray dabkii inuu qabow iyo nabadgelyo u noqdo ibraahim calayhi salaam, sidaasi ayuuna nebi ibraahim kaga badbaaday dhagartii ay gaaladu u maleegeen. arrintii nebi ibraahim markii ay faaftay ayaa wax maqlay nin boqor ah oo la oran
jiray Nimrud ibnu Kancaan. Nimrud waxa uu ahaa boqor ka taliya dhul aad u ballaaran. Deegaanka Nabi Ibraahimna wuxuu ka mid ahaa meelaha uu boqorku xukumo. Kibirkiisii ayaa tusay inuu ilaahnimo sheegto. Waxa uu ahaa boqor aad u dulmiyo isla weyni badan. Nimrud ayaa yiri halla ii keena Ibraahim. Markii loo keenay ayuu yiri Ibraahimo waxaad sheeganaysaa inaad leedahay ilaah aan aniga ahayn. Markaasuu Nabi Ibraahim yiri haa ilaahay waa kan waxna dila waxna nooleeya. Nimrud ayaa yiri anigaba wax waan dilaa waxna waan nooleeya. Waxa uu xabsiga ka soo daayay 2 nin oo u xirnaa. markii uu soo daayay ka bacdina mid ayuu dilay midna uu sii daayay. Nabi Ibraahim markuu arkay ninkan inuu murmayo ayuu ku yiri alle qorraxda waxa uu ka soo bixiyaa maalin kasta dhanka bari adigu ka soo bixi qorraxda dhanka galbeed haddii aad awood leedahay. Halkaasi ayuu ku ceeboobay oo ku jabay boqorkii kibirka badnaa ee Nimrud. Muddo ayuu Nabi Ibraahim yeerida xaqa ka dhex waday tolkii balse waa ay ku gaaloobeen oo ma ay rumayn. xilliyo badanna waa ay dhibaateeyeen intuu joogay Ciraaq. waxa rumeeyay oo kaliya xaaskiisii Saara iyo wiilku adeerka u yahay ee Nabi Luud alayhi salaam. reer Baabil markii ay ku gaaloobeen ayuu ka haajiray isaga iyo Saara iyo Luud waxayna u baqooleen dhulka barakaysan ee Falastiin. waxa uu deegaan ka yeeshay Falastiin halka Nabi Luudna uu aaday meel aan ka fogeyn oo dhanka xeebta ah oo ah meel u dhaxaysa Urdun iyo Falastiin. muddo kadib alle ayaa u waxyooday Nabi Luud oo isagana ka dhigay rasuul waxaana loo diray dadkii deganaa halkii uu u soo hijrooday. Nabi Ibraahim deegaankii uu tagay ayuu dacwadii ka sii waday waxaanu ahaa midaan ka daalin inuu dadka ugu yeero caabududa alle sidoo kalena uga digo ciqaabta iyo carada alle haddii ay ku mahadnaqi waayaan nimcooyinka uu siiyey kana fogoon waayaan sanabyada ka dhigashada ilaahiyo ay kaalmo weydiistaan. muddo kadib Nabi Ibraahim ayaa u safray Masar oo ay xaaskiisa Saara la socoto. waxaa halkaasi ku qabsaday arrin kale oo ah waxaa loo sheegay in boqorka ka taliya Masar uu yahay nin dadka dulmiya qafaasha ama afduubta haweenka kadibna ku xadgudba. ciidamadii boqorka ayaa helelay Nabi Ibraahim iyo xaaskiisa waxay weydiiyeen ruuxa dumarka ah ee la socota waxaanu ku jawaabay waa walaashay. boqorkii ayaa arrintii loo sheegay kadibna wuxuu yiri halla ii keeno waana loo keenay. markaasuu damcay inuu ku xadgudbo xaggeeda markuu u soo dhaqaaqay ayay Saara bariday ilaahay. boqorkii markii uu gacanta Saara xaggeeda u soo taagay ayaa gacantii qalashay oo dareenkii ka tagay. markaasuu boqorkii Saara ku yiri ii weydii rabbigaaga inuu i caafiyo aniguna waan ku nabad gelinayaa waxaan hadiyad ku siinayaa gabar adoon kuu ah oo jaariyad kuu noqota. sidii ayay samaysay boqorkiina sidii ayaa gacantii ugu soo noqotay. kadibna waxa uu siiyay gabar jaariyad u ahayd oo u shaqaynaysay gabadhaas oo lagu magacaabo Haajara. kadibna waxay dib ugu soo laabteen Falastiin. Nabi Ibraahim alayhi salaam aad ayay da'diisu u weynaatay waxaanay gaartay 86 sano wax caruurna ma uusan dhalin xilligaasi. kadib xaaskiisii Saara ayaa ku tiri guursa gabadhan Haajara ah waxaa laga yaabaa in alle awlaad ka siiyo maadaama aniga aan duqoobay. sidii ayuu sameeyay Nabi Ibraahim alayhi salaam oo waxa uu guursaday Haajara. kadibna Haajara waxay u dhashay wiilkaas oo loo bixiyay Ismaaciil alayhi salaam. markii Nabi Ibraahim uu dhashay Nabi Ismaaciil alayhi salaam alle ayaa u waxyooday Nabi Ibraahim ishaaro kale oo ah in xaaskiisa weyn Saara ay u dhali doonto wiil oo la yiraahdo Nabi Isxaaq. labada wiilna uu alla u barakayn doono kana dhigi doono kuwa aad u farcama dhabarkoodana laga soo saari doono dhammaan nabiyada ka dambeeya ee imaan doona. Nabi Ibraahim alayhi salaam gadaashi Ibnu Kathiir waxa uu kitaabkiisa qisooyinka nabiyada ku soo wariyay in markii Haajara ay wiil dhashay in xaaskiisii kale ee Saara ay niyad jabtay iyo masayr ay dareentay. markii uu Nabi Ibraahim arkay dareenkeeda oo isbedelay ayuu Nabi Ibraahim go'aansaday inuu reerka yar u raro magaalada barakaysan ee Makka. Nabi Ibraahim halka ayuu reerkiisii yaraad dajiyay waxaana uga tagay wax yar oo timir iyo biyo ah. kadibna waxa uu xaaskiisii Haajara ku yiri waxaan ku laabanayaa Shaam. Haajara ayaa ku tiri waadigan cidlada ah oo oomanaha ah miyaad nooga tagaysaa. waa uu ka aamusay dhowr jeer markii ay ku celcelisay ayay tiri arrin xagga alle laga amrimiya. markaas ayuu Nabi Ibraahim yiri haa. markaas ayay ku qanacday oo ku soo laabatay iyadoo oo tiri alle nabad dayacayo. Nabi Ibraahim alayhi salaam markii uu reerkiisa uga soo tagay meeshaas cidlada ah oo uu gaaray buur yar oo iridda Maka laga galo u dhow ayuu istaagay isaga oo gacmaha alle u taagaya ayuuna yiri rabbiyow waxaan dajiyay durriyadaydii waadi wax toog iyo biyo toona aan lahayn oo u dhow gurigaaga barakaysan. rabbiyow si ay salaada u oogaan dad la dago ay weheshadaan u yeel mirana ku irsaaq waxa ay mudan yihiin inay kugu shukriyaan. kadibna xagga dhulkii uu ka yimid ayuu u jahaystay. alle ayaa ka aqbalay baryadii uu meeshii cidlada ahayd reerkii u barakeeyey. muddo kadibna Nabi Ibraahim waxaa u timi bishaaro kale in xaaskiisa weyn ay dhali doonto wiil la yiraahdo Isxaaq kaasi oo isna dhali doono Yacquub. labadana alle uu ka dhigi doono nebiyo iyo dad uu doortay. Nabi Ibraahim waxa uu mar walba booqan jiray Maka si uu uga warqabo xaalka reerkiisii kale. markii Ismaaciil uu weynaaday ayaa alle ku imtixaamay inuu gowraco wiilkiisa yar. amarkii alle ayuuna qaatay. markii uu mindida qoorta ka saaray ayuu alle subxaanahu wa tacaala Ismaaciil ku furtay neef wan ah oo weyn. Nabi Ibraahim alayhi salaam ilaahay waxa uu ku sifeeyey inuu yahay ballanfuliye runsheeg ah. Ibnu Cabbaas Allah ka raali noqdee waxa uu yiri Nabi Ibraahim ayaa yimid Maka isaga oo wada amar alle
alle oo ah inuu dhiso kacbada. wiilkiisii nebi ismaaciil calayhi salaam ayuu ku yidhi waxaa lay amray inaan halkan ka dhiso ilaahay beydkiisa barakaysan. markaasi ayay bilaabeen dhisidda kacbada. markay dhisidii kacbada dhammeeyeen ayaa waxaa u yimi jibriil si uu u baro manaasibta iyo gudashada xajka iyo goobaha dawaafka. kadibna nebi ibraahim dadkii meesha joogay ayuu khudbo u jeediyey isagoo leh dadow xaj ayaa alla idinku waajib yeelay. qof walboo soo baxana ilaa qiyaamaha laga gaarayana xajkani wuxuu ku noqonayaa waajib haddii uu awoodeeda yeesho. kadibna nebi ibraahim waxa uu ku soo laabtay dhulkiisii. muddo yar kadibna waxaa nebi ibraahim ku soo xaadirtay geeridii waxaanu u yeeray awlaadiisii iyo farcii ay dhaleen si uu ula dardaarmo. waxa uu ku yidhi ubadkayow eebbe waxa uu idiin doortay diintan ee hadhimanina idinkoo aan muslim ahayn. kadibna wuu geeriyooday nebi ibraahim calayhi salaam isaga oo ilaahay raalli ka yahay waajibkii saarnaa ee ugu yeeridda dadka cibaadada allena gutay. nebi ibraahim waxaa lagu aasay dhulka falastiin wuxuuna ummadda uga tegay dhaxal iyo raad fiican oo ay raacdo. alle ayaana ku sharfay in dhammaan nebiyadii ka dambaysay ay noqdaan kuwa durriyadiisa ah. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما